dad badan waxay kugu barteen oo kala socdaan adoo ka hadlaysa ama dadka u soo jeediyay barnaamijyo dhiirigelin oo aan filay dad badan ka wada faa'iideen arrimahaas goorma ayaa soo bilowday arrimahan dhalinyarada iyo wax sheega iyo wacyigelinta runtii waqti dheer ma intan shaashada soo fadhiistay mise wixii ka horreeyay runtii weligay waxaan iska jeclaa tala bixinta waxaan xasuustaa anigoo 7 jira meelaha ama 6 jira inaan tooshashkii caagga ahaa weli ma la adeegsan ma la isticmaalaa tooshashkii caagga ahaa ma arki laga yaabaa inay meelo badan ka jiraan aad iyo aad tooshashkii caagga ahaa intaan xasameyn jiray intaan afka hore ka furo ayaan dhoobo intaan duduliyaan sidii kubadda kale intaan u sameeyo afka hore kaga xidhi jiray markaasaan caangiri intaan u sameeyo ayaan daasada caana koostiga intaan xagga xiran geedaha saajin markaasaan ku heli jiray marka tan iyo intaan yaraa garaadsaday waxaan xasuustaa dadkaan la hadlo imaam baa soo noqday daaci baa soo noqday inta dambe intana YouTube-ka arrimaha bilaabeen 2000 inta hore qoraaladan wadi jiray Facebook-an soo gelin jiray qoraalo yar oo iska nolosha iyo waayaha iyo xikmadda nolosha ka warramaya tan 2017 waxaan bilaabay barnaamijka fikradii book marka waqtiyada aan bay kulay ahayd intii aan social media soo galay موضوعيات waxay la xiriiraan kac istaag guuleyso saan sameey wad sameyn kartaa bal isaash ugu horeysa waa maxay guushu guushu macnaheedu kooban marka la eego waxa weeye in qofku ka horeeyo inuu jawaanibta nolosha kala duwan mid kamid ama laba kamid inuu dadka la ayniga oo kaga yar horeeyo qofka maanta iskuulka kaalinta koowaad gala ardayda 99 kale uu ka yar horeeya waa naajix waa qof guuleystay markay noqoto daraasada qofka qoyskiisa qoys wanaagsan leeyahay reerkiisa si fiican u maamulanay waa qoys guuleystay laakiin mushkiladda maanta jirta waxay tahay guusho dhan waxa loo ekeysiyay qof boorso wata safraya diyaarada raacaya meelaha soo wareegaya marba meel ku soo dalxiisay guushii taas loo yar ekeysiyay ona cawlamada keentay iyo ooda furanka globalization dunida ka jira laakiin guusha si fudud liibaanta iyo guusha marka la isku dheeli tiro laba macno kala duwan weeyaan liibaantuna waxa weeye waa guusha aakhiro guusha caadigan waxa weeye waa tan dunida weeyaan guusha waxa la oran karayaa 3 nooc weey ayaa guusha loo macnayn karaa labo waxa weeye waa koon u baahanahay ma mid baan u baahanahay ta koowaad waxa weeye waa guulan dhamaysayn guulan dhamaysayn guushan dhamaysayn waxa weeye wada sharci qofkan ku gaaray guusha laakiin aakhiro uma gudbinayso wax ka sii horeynaya amal ka sii horeynaya ma sida gaaladuba inta shaqo wanaagsan bay hayaan wada sharci oo xalaal laga yaabo inay ku maraan ku gaaraan laakiin wax aakhiro u sii gudbaya ma niyadii aakhiro iyo muslimada iimaanka lama socdo waa guusha aan dhamayska ahayn guusha dhamayska waxa weeye waa guusha wada sharciyana loo maray qofkana rabbigiisa u dhaweynaysa ganacsi bay noqon karaysaa siyaasad bay noqon karaysaa waxbarasho bay noqon karaysaa caafimaad bay noqon karaysaa saxafiyinnimay noqon karaysaa waxa weeye inaad wada sharciyana ku marto oo dadaasho ilaahayna inaad ugu dhawaanaysid oo aad adana wax ugu xaynaysid oo wax ugu gudbinaysid wadada jannada aad gaartay halka aad socotay adigoo halka doonaysana gaaray haddana niyadaadu wanaagsan tahay oo ilaahay darteed u sameeyay wax fudud weeyaan mana fududa si marka loo eego qof walba inuu guuleysto ordo dad la tartamo doonaya laakiin qofku yiraahdo wadooyinka jannada lagu galo way farabaday qof baa laga yaabaa siyaasadda inuu ummadda hogaaminta intuu hagaajiyo jannada ku gali karaya qof baa ganacsiga oo xoolo badan sadaqeyn karaya oo ay saxaabadii in badan oo kamid ah hantiilayaal bay ahaayeen ganacsadayaal bay ahaayeen haddana iyagoo nool baa dunida joogaan aakhira aadin baa jannada loogu bishaareeyay marka qof baa caafimaad ku geli karaya janno qof baa waxbarista iyo macallimada ku geli karaya qof baa saxaafadda ku geli karaya marka uu niyadda qofka inuu wanaajiyo guusha nooca saddexaad ee guusha dadku u arkaan guul saan ahayn waxa weeye guusha waamiga wada sharciyana lagu marin wada khaldan qof ku gaaray laakiin cirkaas uu maraya heer buu gaaray dadkuna heer gaaray baa loo arkaa laakiin waa guul wahmiya dadkana aakhirka dadkan is wada dilaya dad aragtay Mareykanka ama reer galbeedka nolosha ka gaaray wax inagu dadka caadiga ah ma jeeranayaan ama waa actor hantiile waa kan haddana aakhirku is dilaya marka taas meel lama socoto waa guusha wahmiga guusha u baahan marka guusha dhamayska wada sharciya lagu maray wada sax lagu gaaray sidoo kalena qofka ilaahaygiisa u dhaweynaysa niyad wanaagsan lagu galo maxaa kamid ah sababaha guusha keena sababaha guusha keena runtii dadaal baa kamid ah laakiin dadaalka
waxaa jira saddex waddo qofku mid ku guulaysta oo guusha ku gaadha ta koowaad waxa weeye haddaynu adeegsano 1 ilaa 10 lambar 1 ilaa 10 haddaynu nidhaahno furaha guusha waxa weeye waa 1 3 6 7 9 haddaynu nidhaahno oo kowdkaas dad garaacdo aad guulaysanaysaa la yidhaahdo saddex waddo bay noqonaysaa iyadana inaad wixii tajribaysid maalin walba aad ka cakuftid oo 1 3 6 10 aad gelisid haddana kuu shaqayn weydo maalin walba aad tijaabisid oo waddada labaad waxa weeye inuu ilaahi subxana taala kugu ilhaamiyo oo dadaalka ugu horeysa markaad samaysaba aad 1 3 6 9 aad ku dhufato oo kowdka inta ku galaad sidii ku guulaysato ta kalena waxa weeye in qofku uu tajribada bini aadamka dad baa jira meel walba oo qofku hiigsanayo cid baa jirta kaga horeysa oo gaadhay dadka wadadooda inuu raaco iyagu mentors inay noqdaan buugtooda inuu akhriyo heer walba doon nolosha ka gaadho cid baa jirta meesha hormuud ku ah dadka inuu wadadooda raaco waxay ku fududeynaya waxa laga yaabaa qofkan inuu 10 sano wadda aad mari lahayd oo kaca ku filayd inuu kuu soo dhaweeyo marka majaalada kala duwan ee nolosha qofku doonayo uu isleeyahay ka gungaadh in cidda ku hagaagsan gaadhay ama ku dhow inuu isku xeero hadday aqoonteedii noqoto hadday wax akhriskeedii noqoto hadday koorasyadeedii noqoto hadday la saaxiibadeedii noqoto waddada marka waddada ugu fiican aan isleeyahay la saadaalin karayo wata waa midaas waa tahay waa maxay cadowga guusha